ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay risaaladii budlaanu nikaax bikayri waliyin waxaan darsigeennii hore ku soo ogaanay culammada muslimiintu inay dhammaan isku waafaqeen gabadha markay guursanaydo weli inay leedaho ilaah u yeelay weli laakiin waxay isku khilaafeen weligaas markay guursanaydo nikaaxa ma shardi u yahay oo la-aantiis ma ansaxaya miyaa mase way dhici kartaa inuu ansaxo waxaan soo ogaanay jamaahiirta culammada muslimiintu inay yidhaahdeen waa shardi weligu la-aantiisna wax guuruhu ma ansaxayo meeshaas waxaa khilaafay abuu xaniifa iyo a'imo kale oo yidhaahdeen waa ansaxayaa nin kuf ah hadday guursato waxaan soo ogaanay marka masalo laysku khilaafo ilaahay inuu waajibiyey in loo celiyo kitaabka iyo sunnada si loo ogaado mas'alada xaqa ah oo sawaabka ah iyo mas'alada kale ay u kala caddaadaan waxaan soo gaarnay marka adilatljumhuur culummada mucdamkoodu qowlka ay yidhaahdeen nikaax ma ansaxayo weli la-aan adilada ay u deliishadeen xaqa iyo baadilkana waxaa lagu kala ogaadaa daliilka istadalla waxay deliishadeen aljumhuuru culummada badankooda mucdamka culummada waxay deliishadeen calaa maa qowlkiina ay u deliishadeen dahabuu ilayhi ay ku tageen biadilatin adilay u deliishadeen minhaa waxaa ka mida awalan ugu horayn alkitaab adilada waxaa ugu horeeya kitaabka ilaahay ayay u deliishadeen kitaabka alloo sheegaya gabadhii aan weligeedu nikaaxin inaysan nikaaxsanayn adaliilu lwal daliilka ugu horeeya oo ka mida kitaabka alle qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu ku qowlay qad calimnaa waan ogaanay uu ilaah yidhi maakii faradnaa aan ku waajib yeelnay calayhim mu'miniinta korkooda fii aswaajihim xaasaskoodana aan kula waajib yeelnay aayaddaas ilaah wuxuu leeyahy waxaan ognahay waxa aan mu'miniinta ku waajib yeelnay marka ay guursanayaan xaasaskooda aayadda macnaheeda si aan u ogaano waxaan ka soo raraynaa imaamulmufasiriin ibnu jariiru dabari wixii uu ka yidhi maxay tahay waxa ilaahay nagu waajibiyey markaan guursanayno sidoo kaleeto taabiciyaalkii mufasiriinta ee ardadii nabiga wax ka bartay saxaabadii wax ka bartay ayaguna bal waxay yidhaahdeen qaala alimaam ibnu jariiru dabari wuxuu yihi raximahullah yaquulu tacaalaa dikruhu ilaah wuxuu leeyahay xuskiisu wuu sarreeyaahe qad calimnaa waan ogaanay maakii faradnaa aan ku waajib yeelnay calalmu'miniina mu'miniinta fii aswaajihim xaasaskooda aan kula waajib yeelnay idaa araaduu markay doonaan ragga mu'miniintaa nikaaxahunna inay guursadaan xaasaskaas oo mimaa shay ah lam nufridhu aanaan ku waajib yeelin calayka korkaaga axkaamta gobolka mid ah nabiga iyo mu'miniinta kale alla waa ku kala duway waxaana ka mida axkaamtaas marka la guursanaa nabiga sala اllahu calayhi wasalam wuxuu guursan karaa weli la-aan wuxuu guursan karaa markhaati la-aan wuxuu guursan karaa meher la-aan haddii gabarunta u timaado rasuulka sala اllahu calayhi wasalam ay tiraahdo naftayda waa kuu hibeeyey nabigu hadduu aqbalo waa xaaskiisii laakiin ilaah xukunkaas wuxuu sheegay nabiga cid kula midu inaysan jirin waxaana rabbi yidhi khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin aday gaar kuu tahay nabiga subanow mu'miniinta ka sokay marka shaygan ilaah mu'miniinta ku waajibiyey markay guursanayaan oo aan ogaa doonno nabigu waa ka duwan yahay ilaahay isaga kuma waajibin markaasuu imaamulmufasiriin wuxuu yidhi qad calimnaa waan ogaanay maakii faradnaa aan ku waajib yeelnay cala almu'miniina fii aswaajihim xaasaskooda idaa araaduu marka ay mu'miniintu doonaan nikaaxahunna inay guursadaan xaasaska oo mimaa shay ah
lam nufridhu aanan ku waajibin calayka korkaaga nabiga suubanow wa mimaa shay waan ognuhu ilaa yidhi khasasnaahum aan ku gaar yeelnay bihi shayga oo min alxukmi xugun ah fii daalika guurka duunaka adiga ka sokay adiga nebi moxamed kuma jirtid mu'miniinta kalaan ku farad yeelnay waa kana marka wixii ilaahay nagu waajib yeelay qof kasta oo muumin ah waa inuu ogaado marka aad guursanayda xukunka ilaahay kuugu waajib yeelay qof kastoo muumina waa inuu ogaado xukunka ilaahay ku waajib yeelay markuu guursanaa si uu ugu guursado si sax ah wuxuu yidhi ibnu jariir dabari wa huwa xukunka annaa annagu faradnaa waxaan ku waajib yeelnay weeyuu yidhi hadalka alle macnihiisu annaa annagu faradnaa waxaan ku waajib yeelnay calayhim mu'miniinta annahu shaaniye laa yaxilu xalaal uma ahan lahum ragga mu'miniintaa caqdu nikaaxi nikaax gunidiis nikaax in la guntaa xalaal uma ahan calaa xuratin gabar xorana la guursado gabadhaasoo muslimatin muslimaad ah ilaa biweliyin weli maahane weli la'aantiis in la guursadaa xalaal uma ahan weligu talow ma mid gacanku samaysoo gabadhu iska samaysan karto oo meeshii la raba laga heli karaa maya wuxuu yidhi weligaasoo casabatin qaraabada gabadha ah casabada waxaa la yidhaahdaa qaraabada oo xagga aabbaha ah waa nasabka oo xagga aabbaha ah kaasaa la yidhaha casaba marka weli oo gabadha casabadeeda ah kaas maahane si kale nikaax kuma ansaxayo xalaalna ma ahan iyo wa shuhuudin markhaatiyaal cuduulin caadiliin ah walaa yaxilu lahum xalaal uma ahan ragga mu'miniinta minhunna dumarka xaggooda akharu wax ka badan min 4 xaraa'ira 4 xor ah 4 dumarana kama badsan karaan xukunka marka ilaah ku waajibiyey ragga mu'miniinta wuxuu noqday gabar muslimaad ah xor ah marka uu guursanayo ninka xalaal uma ahan ilaa weligeedii qaraabadeeda ahaa inuu ku nikaaxiyo maahane sidoo kale xalaal nikaaxu noqon maa ilaa markhaatiyaal inay joogaan maahane sidoo kale 4 kama badsan karo xukunkii rabbi nagu waajibiyey waa midkaas haddaba nin kastoo ku guursada weligii gabadhaas rabbi weliga uga dhigay qof aan ahayn wuxuu ogaanayaa wixii alla ku waajibiyey ma samayn guurkii ilaah oggolaadayna ma samayn wa qaala ibnu jariir dabari wuxuu yidhi asagoo macnahaas uu noo sheegay sanad ku warinaya kana soo raraya taabiciyaalkii ardadii saxaabada uu wuxuu yidhi wa qaala ibnu jariir wuxuu yidhi ayda noqoshee xadaanaa waxaa noo warramay bishr qaala bishr wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay yasiid qaala yasiid wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay saciid can qataada ibnu dacaama oo taabici ah qowluhu ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi qad calimnaa waan ogaanay maakii faradnaa aan ku waajib yeelnay calayhi mu'miniinta fii aswaajihim xaasaskooda qaala qataada wuxuu yidhi kaana waxaa ka mid ah mimaa kii faradallaahu alla ku waajib yeelay calayhim mu'miniinta anlaa tusawaja inaan la guuri karin imra'atun haweeney ilaa biweliyin weli maahane wa sadaaqin meher cinda shaahideey cadlin laba markhaatiya oo cadli ah agtood walaa yaxilu xalaalna uma ahan lahum ragga mu'miniinta min annisaa'i xagga dumarka ilaa 4 wax ka badano xalaal uma ahan iyo wamaakii malakad ay milkiday aymaanuhu midigyaalkooda inta kale addoommo ayay xalaal ugu noqon karaan marka zawjo oo 4 aan laga badi karin weligeedii nikaaxiyey meher la oggolaaday markhaatiyaal ay joogeen xagga guurka taasaa ka xalaal ah wax kaloo xalaal ah waxaa ka jira ninka addoontii uu milkiyo ibnu jariir dabari bal ka fiiri macnahaas jaamicu lbayaan can ta'wiili aaya lqur'aan aayaddan marka uu sharxaya bal fiiri aayaddaas waan ka gudubnay deliilka labaadoo kitaabka alleh wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waidaa dallaqtumu nnisaa'a dumarka marka aad furtaan fabalaqna ay gaaraan ajalahunna muddadoodii oo ciddadii ay dhammaato falaa tacduluuhunna ha u diidinina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggooda idaa taraadow markay raalli iskugu noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi shay la yaqaano sharcan fii sharci shay sharciga lagu yaqaan hadday iskugu raalli noqdaan ha u diidinina aayaddaas fiiriya waxaa rabbulcaalamiin la hadlayaa ragga gabdhaha weliga u ah waxaa rabbi leeyahay haddii maalan nin uu xaaskiisii furo oo maalan hal dalqo ku furo ama labo dalqadihii kama dhammaan
wuxuu xaq u lahaa inta ay ciddada ku jirto inuu rajciyeysan karo ma rajciyeysan ciddadiiyaa ka dhammaatay hadday ciddadu ka dhammaato asagu ma rajciyeysan karo waa inuu hadduu u baahan yahay soo doono oo weligii mar kale ku nikaaxiyo ninkaas iyo gabadhu hadday heshiiyaan sharcigiina isku ogol yahoon dalqadihii ka dhammaan ragga wilaayada iskale oo gabadha mas-uulka ka ah ha isku diidinina ninkaas iyo gabadha saasa ilaahay leeyahy aayaddaas waxay tusaydaa weliga gabadha hadduusan nikaaxin inaysan guursamayn sababtoo ah haddii gabadhu guurso karto oo markay guur u baahato inta nin doorato wadato wadaad meel fadhiya u tagto ay tidhaahdo weligan kaa dhigtay wilaayadiiaan wakiil kaaga dhigtay ama waa kaa weli dhigtay ee ninkan igu nikaaxi saas haddii nikaaxi lagu heli karo weligu wuxuu diidi kara maba la arkaba ilaah ma dhahin markaa waxa diidin sababta wuxuu diidi kara male waaba laga tasha karaaba laakiin mar haddii rabbi yidhi ha diidinina waxay tustay in aan guur suurtagal ahayn haddaan weligu nikaaxin guur suurtagal maa bal fiiriya aayaddaas sidaas yaa u fahmay a'immadii muslimiinta saasay u fahmeen aayadda sabab nusuul saxiixay leedahay oo saxiixulbukhaariga ku sugan ibnu jariir tabariyaan ka soo qaadanaynaa rawaa wuxuu wariyey ibnu jariir fii tafsiirihi tafsiirkiisa lihaadihi alaaya aayaddan markuu fasirayey bisanadii sanadkiisa wuxuu ka wariyey can macqil ibni yasaar waa saxaabigiiba aayaddan sabab nusuulka ay ku soo degtay uu ku saabsanaa waa saxaabigii gabadha weliga u ahaa macqil ibni yasaar qaala macqil wuxuu yidhi kaanad lii waxaa ii sugneed ukhtun gabar walaal ah gabadhaasoo tukhdabu la soo doono wa amnacuhaa anuguna aan ragga u diido gabar ayaan walaalaha ila dhalatay yuu yidhi raggaa iga soo dooni jiray waa u diidi jira midaa soo doona waa u diidaa midaa soo doona waa u diidaa saasaan ahayu xataa khadaba ilaa uu markii dambe iga soo doonay ilaya aniga ibnu cammin lii in adeerkay wiil ilma adeerk aan nahay aan markii dambe iga soo doonay gabadhii fa ankaxtuhaa gabadhii waa nikaaxiyey wiilkiiyaan ku nikaaxiyey fasdaxibaa way wada joogeen maa sha allahu inta alla doono mudday wada dhaqmayeen uma inahu wiilkii dallaqahaa gabadhii waa furay dalaaqan dalaaqoo lahu wiilka rajcatun ay ugu sugan tahay dalaaq uu rajciyeysan karo macnaha saddexdii dalqa kama dhammaan maalan hal dalquu ku furay dalaaq oo uu soo cesho karo uu ku furay gabadhii markuu ku furay intay ciddada ku jirtay ma soo ceshan uma tarakahaa wiilkii gabadhii waa ka tegey xataa inqadad ciddatuhaa ilaa gabadhii ciddadeedii ay dhammaatay uma khudibad ilaya waa layga soo doonay haddana rag kalaa soo dooneen gabadhii markay ciddadii dhammaatay rag kalaa soo dooneen fa ataanii waa ii yimid yakhdubuha xaalu asna doonayo maca alkhudaabi ragga doonaya la jirkooda ragaa soo doono markii la soo doonay uu asna dhan kale ka yimid markaasuu yidhi walaal gabadhiisi ila mar hadday ciddadii dhammaatay asagu wax ma cesho karo laakiin mar haddaan dalqadihii ka dhammaan waa lagu nikaaxi karaa waa soo dooni karaa markii rag kale iga soo doonuu asna dhanka kale ka yimid marka waa u cadhooday faqultu lahu waxaan ku idhi yuu yidhi khudibad ilaya gabadhan markay gabadha ahayd waa layga soo doonay fa manactuha annaasa dadka waa u diiday fa aafartuka bihaa gabadhaas adaan kuu dooray uma dallaqta waad furtay dalaaqan dalaaqoo laka uu kuugu sugnaaday fiihi dalaaqa rajcatun soo ceshi mana aadan soo ceshan falamaa khudibad ilaya markii layga soo doonay ataytanii waa ii timid takhdubuhaa xaalo aad doonayso maca alkhudaabi ragga doonaya la jirkooda wallaahi ilaah waxaan ugu dhaartay laa unkixukahaa inaanan kugu nikaaxayn abadan weligay saasaan idhi xadiis saxiixulbukhaari buu ku yaallaa raqamka 4529 ibnu jariirna aayaddan sharxeeduu ku soo arooriyey wallaahana weligay kugu nikaaxna idhi khalaas marka halkaas wax yaraa ka go-an oo ahayd in lagu daro waxaa la socotay qaala fafiya naزlat haadihi اlaaya waidaa dallaqtum الnisaaءa fabalaqna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraadaw baynahum bilmacruuf maana inaad ku qorato intaas maxaa intaasu ma kala hari karin waxaa la socotay qaala fafiya naزlat haadihi اlaaya aayaddan anay igu soo degtay anigay ahaa sababka anay igu soo degtay ayuu yidhi macqil aayaddaas
qaala fakafartu can yamiinii wa ankaxtuhaa iyaahu dhaartiiyaan ka kafaaro gutay gabadhiina ninkii waa ku nikaaxiyey ilaa aayadaa soo degtay saxaabaduna dad ilaahay aad ugu hogaansanay ahaayeen sidaasuu yidhi qaala fakafartu can yamiinii wa ankaxtuhaa iyaahu uu yidhi fiiriya marka siday a'immadii muslimiintu aayaddan u fahmeen uma qaala ibnu jariir wuxuu yidhi wa fii haadihi alaayati aayaddan waxaa ku sugan addilaalatu dilaala daalka waa la kasri karaa dalaala waa la fadxi karaa dulaala waana damaa la saari karo waa la godi karaa saddexda waa ku bannaan ibnu jariir wuxuu yidhi wa fii haadihi alaayati aayaddan waxaa ku sugan addilaalatu tusid alwaadixatu cad calaa sixati qowli man qof hadalkiisa saxnimadiisay tusee qaala yidhi laa nikaaxa nikaax saxiixun ma ahan ilaa biweliyin weli maahane weligoo min alcasabati qaraabada ah fiiri aayaddan waxay si cad u tusaydaa culummada yidhaahdeen nikaax ma ansaxayo oo saxiix ma noqonayo ilaa weligii qaraabada ahaa inuu nikaaxiyo un maahane culummadaas qowlkoodii tusayda inuu sax yahay aayaddaana si sariixay u tusayda oo ku cadda siday u tusaydu markana darisiina fiiriya si sharax layaabuu saara oo qofka aayaddan keligeed ay ugu filan tahay mawduucaana dhan haddaan inta kale iska day lahayn oo aayaddan sharxi lahayn waa nugu filnaa lahayn shaki la'aan aayaddu siday u caddahay iyo siday culummada muslimiintu u fahmeen fiiriya wuxuu yidhi qaabka ay u cadduuna tusaa wadaalika caddaantaasu haabitu waa suganya ana allaaha lianna allaaha allah tacaalaa wuu sarreeyaa dikru ilaahay xuskiisuye manaca alle wuxuu u diiday alweliya ninka gabadha weliga u ah min cadlilmar'ati haweenayda in loo diido in araadad hadday doonto an nikaaxa guur gabadhu markay guur doonto in loo diido guurka aayaddan ilaahay ugu diiday ragga weliga u ah raggii weliga aha wuxuu alle u diiday inay gabadha guurka ka hor istaagaan wanahaahu weliga ilaah waa ka reebay can daalika cadligaas cadligu waa manciga inuu guurka u diido ilaah waa ka reebay falow kaana fiiri marka falow kaana hadduu u sugnaa lahaa lilmar'ati haweenayda inkaaxu nafsihaa nafsadeeda inay guuri karto bikayri inkaaxi weliyihaa weligeeda guurintiisii kayrkiis iyahaa iyada u guuriyo weliga guurintiis la'aantiis haddii gabadha uu u sugnaa lahaa inay nafteeda guuri karto ow amase fiiriya ow amase kaana lahaa gabadha hadduu u sugnaa lahaa tawliyatu man qof inay weli ka dhiga karto araadad ay doonto tawliyatow inay weli uga dhigato fii inkaaxiha la guurinteeda lam yakun uma sugnaadeen linahyi weliyihaa weligeeda in laga reebo can cadlihaa ayada la diididdeeda guurka loo diido macnan mafhuumun wax macnaa oo la fahma uma sugnaadeen wuxuu yidhi haddii gabadha markay guurdood u baahato ayadu ay isbixi karto ay isguuri karto amase wadaad meel fadhiyinta u tagto ay dhihi karto weliyan kaa dhigtaye iguuri shiiku wilaayadaydiyaan kuu dhiibtaye ninkaan igu nikaaxi haddii sidaas gabadhu dhihi karto oo sidaas guur ku suurtagelayo weliga wax la yidhaah warhadiidin maba la arkaba maxaa yeele wax gacanta uguma jiraan maxaa yeele mar alle markay guur u baahato inta iska dhaqaajido oo wadaad meel fadhiyo qolka nikaaxa ugu qorayo u tagto ay leedahay wadaad adaan weli kaa dhigtay wilaayadaydii adaan kuu wakiishaye ninkan igu nikaax ila socdo saasayna ku guurseen muxuu diidi karaa marka ya muxuu diidi karaa sidaas daraaddeeda macnihii muxuu noqday qofka yidhaahda gabar aan weligii guurin ayaa nin isi sii karta ama nina inta u tagtoo wilaaye u dhiibato aan ninkii nikaaxinaa saasaana nikaaxu ku ansaxaa waa qof yidhi ilaahay nahyigiisu macno ma leh saas wayuu leey ibnu jariir waa qof yidhi ilaahay nahyiga uu leeyahay war weliyow ha diidin gabadha wax macnaa iyo wax qiimaa ma leh hadalkaas in faasid yahay qof walba waa fahmaya qof kastoo muumina wuu fahmi karaa ilaahay nahyigiisa iyo qowlkiisa macno ma leh hadalkaas faasidnimadiisa soo hadal faasida maaha marka wax uu diidi kara madal arkada u fiirso bal hadalka ibnu jariir aad u dhuuxa bal fiiriya wuxuu yidhi falow kaana hadduu u sugnaa lahaa
lilmar'ati haweenayda inkaaxu nafsihaa nafsadeeda inay guuri karto bikayri inkaaxi weliyihaa weligeeda guurintiisii la'aantiis iyohaa iyada uu guuriyo ow kaana lahaa gabadha hadduu u sugnaa lahaa tawliyatu man qof inay weli ka dhiga karto araadad ayadu ay doonto tawliyata weli ka dhigashadiisa fii inkaaxihaa ayada la guurinteeda ay weli uga dhiga karto lam yakun maba u sugnaadeen linahyi weliyihaa weligeeda reebidda laga reebaa can cadlihaa ayada in guurka loo diido macnan wax macnaaba uma sugnaadeen macnaho mafhuum la fahma id cilladu waxay tahay haddiiba gabadhu nin inta u dhiibato wilaaye ay guursan karto id cilladu waxay tahay kaana wuxuu ahaa laha sha'nigu laa sabiila wax wadaa lahu inaan weliga aysan u sugnaan id cilladu waxay tahay kaana ama kaana waxaad ka dhigtaa isimkeeda weliga id cilladu waxay tahay kaana weligii wuxuu yahay laa sabiila wax wadaa lahu weliga uguma sugna ilaa cadlihaa gabadha inuu guur u diido haddii laydhaha gabadha inta tagtoo nin wilaaye u dhiibato ay sidaas guur xalaala ku helehe weliga maba u diidi karo guur maba ka hor istaagi karaba isqaab uugu diida maba la arkaba sababtoo ah wadaalika wadala'aantaas cadamu sabiil wadaalika cadamu sabiil wadada la'aantaasu haabitu waa sugan maxaa yeelay annahaa liannahaa gabadha in kaanad hadday tahay mataa waqtigii araadad ay doonto an nikaaxa guur jaasa lahaa miduu u bannaan yahay hadday tahay inkaaxu nafsihaa nafteeda inay guurido ow amase inkaaxu man ama nin uu guuriyo tuwakiluhu ayadu ay u wakiilato inkaaxaha la guurinteeda falaa cadla wax diidid ah hunaaka halkaas maba yaallaba qof diidi kara maba la arkaba wax diidid ah hunaaka halkaas kumana sugnaa min axadin qof uguma sugnaa oo fayunha markaas laga reebo caadiluha midka u diidaya can cadliha la diidideeda mid oo guurka gabadha u diida oo laga reeba maba la arkaba meeshaba ma yaallaba marka maxaa soo baxaya haddii la yidhaahdo gabadhu ayadoon weligeedii nikaaxinay guur heli kartaa xalaal ah oo ayadaa iska guursayda ama nin meel jooga inta u tagtay u wakiilan ay leedahay waa ku wakiishay nikaaxi ama wakiilo mayda weligay ka dhiganeen waxay leedahay wilaayadaydiyaan kuu dhiibtay maray u tagtuu leeyahay haye gabar magacaa hebla hebel weli mayga dhigatay waa kaa dhigtay saasay ku guursay haddii la yidhaah waxay tahay ilaahay weyna aayadda uun uga nahiyey owliyada gabadha in guurka loo diido macno male taasuna waa faasid waa hadal khatara soo maa wuxuu yidhi ibnu jariir hadalkaas hadduu faasid yahay maxaa soo baxaya ilaahi weynaa weliga uu gabadha weli uga dhigay hadduusan guurin guur la arki ma saasaa soo baxayda waana sida saxda ahayd wuxuu ku yidhi wa fii fasaadi lqowli qowlka fasaadkiisa waxaa ku sugan biallaa macnan wax macnaa uma sugna in la yidhaahdo linahyi illaah ilaahay nahyigiisa camaa shaygii nahaa canhu uu reebay ilaahay nahyiga uu nahiyey wax macnaa ma leh waa faasid fasaadkaas marka waxaa ku sugan sixatu qowli qowlka inuu sax yahay bianna liweliyi lmar'ati gabadha weligeeda waxaa u sugan fii taswiijihaa gabadha la guurinteeda waxaa ugu sugan xaqan xaq gabadha weligeedu gabadha guurkeeda xaquu ku leeyahay xaqaasoo laa yasixu uusan ansaxayn caqduhu nikaaxa in la xiro ilaa bii xaqaas maahane gabadha marka la guurino weligeedaa guurkaas xaqu leh mana ansaxayo nikaaxu ilaa xaqaas la helo oo weligu uu gabadha nikaaxiyo wa huwa xaqaasuna almacnaa waa macnaha alladii waa macnaha amarallaahu ilaahay u amray bihi macnaha sababtiis alweliya weliga min taswiijiha gabadha in la guuriyo idaa khadabahaa markuu soo doono khaadibuha ninka gabadha doonaya wa radiyat bihi ayaduna ay raalli ku noqoto ninka wa kaana ninkuna uu yahay ridan mardiyan mid raalli laga yahay cinda owliyaaha gabadha dadka weligeeda agtooda oo hadda waxaan idhi gabadha dadka weligeeda xaqay ku leeyihin guurka ninka waa inay ka fiiriyaan dadkiiyay kala yaqaaniin nin ay dareemayaan inuusan gabadhooda dhaqan karin oo uga cayaarayo waa inay u diidaan waana sababta wilaayada loogu dhiibay gabadhan waa miskiin dad ma kala taqaan tuuggii isbaaralaydahayo dadka dhammeeyey ee khaa'inka ahaa ayaa shaar cad u soo qaadana oo caariyahu saaxiibka iska soo bariyey 10 furana waa isku soo xihanoo dariiqa ka soo helay
markaasuu baqaara iga xidhane naka walweynaan ka soo laabanay baqaarkia waxoogaa iga xidhmay maante 10 furo dariiqa ka soo qaaday wey khalaas waxay leedahay khalaas waxa weeyaan ninkan shaatiga cad akhyaar waa yahay maalna furayaalkii baqaarkuuga sidayuu ku dhaaf laakiin aabeed saas lama dhihi karo hadduu 50 furo soo qaato inaad ayaad aheedu leey ina hebel ilma hebel waa kuwii laba ahaayo mid wuxuu ahaa waxa weeyaan ardaga meel hebla wax ka barta midna wuxuu ahaa kii isbaarada kaadaheed adugu maando dib oo toosha ku shidma soo ma jeedid marka gabadha saasa wilaayada alla ugu dhiibay soo ma jeedid gabadha wilaayadeeda saasa ilaahay rag ugu dhiibay waa uu ka fiirina aabeed waa kan naxa maxaa yeelay ceebta gabadhiisa ku dhacda asagay ku dhace dhibaatada gabadhiisa ku dhacda asagay ku dhace gabadhiisa wanaagay gaarta asaga gaaraya marka waa ka fiirina ninka waa inuu yahay nin gabar dhaqan kar ilaa dhibkeedu bari asagu ku soo laabana marka nin raali laga yahay hadduu yahay waa inaan loo diidin wa kaana ninkaas waa inuu yahay ridan mid raali laga yahay cinda awliyaa'iha gabadha awliyadeeda agtooda jaa'isan waana inuu yahay mid ku bannaan fii xaqi lmuslimi fii xukmi lmuslimiina muslimiinta xukunkooda limilihaa gabadhaasoo kale an tankixa inay guursato milow ninkoo kale haddana waa in guur isku qaban karo nin muslima waa inuu yahay dalqadihii waa inaysan dhammaan ilaa dalqadihii hadday dhammaadeen guur iskuma qaban karo marka waa inuu yahay nin guur u qaban karo shareecada islaamka iyo xukunka muslimiinta wanahaa ilaa waa ka reebay hu weliga can khilaafi xukunkaas waxaan ahayn oo khilaafsan wanahaahu weliga ilaa wuxuu ka reebay can khilaafi xukunkaas oo ah gabadha in la guuriyo taswiijka ah xukunka khilaafsan oo muxuu yahay xukunka khilaafsan min cadlihaa gabadha in la diido wa mancihaa gabadha in laga hor istaago loo diido camaa shaygii araadad ay doontay oo min daalika guurka ah nin wanaagsan dhaqan kara in loo diido taasa ilaahay weliga ka reebay wa taraadad ninkii ay raalli ku noqotay hiya ayado walqaadibu kan doonayaa bihi uu guurka raalli ku noqday oo wa taraadad ay raalli ku noqotay hiya ayada iyo walqaadibu ninka doonayaa bihi guurkaas ay raalli iskugu noqdeen kaas in loo diido kaasaa ilaahay diiday aayad kale wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa tankixu lmushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah oo ilaahay u shariig yeelaya ha guursanina ragga mu'miniinta ahow walaa tankixuu ha guursanine almushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan ilaah iyo rasuulkiisa iyo xaqa ilaa ay xaqa rumeeyaan ha guursanina wala'anatun addoontoo mu'minatun mu'minaad ah khayrun ka khayr badan min mushrikatin gabar mushrikaad ah walow acjabadkum gabadhaasu haba inan cajabgelido quruxdeeda haba inan cajabgelido laakiin quruxdeedu qiimo ma leh mar hadday ahlu shirki tahay marka aayadda meesha laga daliishaa fiiri lama dhihin gabdhow ha guursanina ragga mushrikiinta maxaa gabar iyadu ma guursan kartaba laakiin maxaa la yidhi waxaa ilaah yidhi walaa tunkixuu ha u guurinine almushrikiina ragga mushrikiinta meeshaas way meesha la deliishanaa lama dhihin gabdhow idinku ha guursanina ilaah ma dhihin sababtaa gabar ayadu maba guursan karto guur xalaala ma guursan karto ayadoo weligu guurin alla marka weligii la hadluu leey adugu ha ku nikaaxin ha u guurin adugu nin mushrika gabadha ha u guurin saasuu leey alla weligii la hadlaa fiiriya walaa tunkixuu ragow ha ku nikaaxinina almushrikiina ragga mushrikiinta xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan xaqa wala cabdun addoonkoo mu'minun muumin ah khayrun ka khayr badan min mushrikin gaal mushrik ah walow acjabakum gaalka mushrika haba inan cajabgeliyo ee waxaa ka fiican addoon mu'min ah saas darteeda gabdhaha idinkaa mas-uulka ahe nin mushriga ha ku xidhinina lama dhihin gabdhow idinku ha guursanina aimada muslimiintu say u fahmeen aayaddan fiiriye ma rabno aaraa kale inay naga dhex gasho qaala alimaamu alqurdubi wuxu uhi raximah اllah fii hadihi اlaaya aayaddan waxaa ku sugan daliilun daliil binasi cad nas waxaa la yidhaha aayadda hal macno ku cadoon wax kale aqbalayn naska waxaa la yidhaha waa macnaha aan wax kale aqbali karin oo hal qaab ku cad nasaa la yidhaha aayaddan markaa binas si cad waxay u tusaydaa calىa an laa nikaaxa inaan nikaax صaxiixun ahayn ilaa biweliyin weli maahane weligu inuu nikaaxiyo maahane inaan nikaaxu sax ahayn aayaddaana tusaydu leey waxa w imaam اqurdubi abu cabdilaahi alqurdubi wa qaala imaam wuxuu yidhi imaamkii moxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib wey wuxuu yidhi raximah اllah
النikaaxu nikaax صaxiixu wuxuu ku ansaxaa biweliyin weli fii kitaab ilah kitaabka alle ilaahay kitaabkiisa nikaax wuxuu sax ku yahay waa weli si kale kuma aha النikaaxu nikaax صaxiixu waa صaxiix biweliyin weli ayuu صaxiix ku yahay fii kitaab illahi kitaabka alle uma qara'a markaasuu imaam moxamed bn cali bn xusein wuxuu aqriyey walaa tunkixuu ha u guurinina ragow almushrikiina ragga mushrikiinta fiiriya ha u guurinina afcaladaasa laga deliishana se uma jeedin wa qaala imaamu اlmuzani ismaaciil ibnu yaxya almuzani waa ardaygii imaamu shaafici ee imaamu shaafici uu dhihi jiray naasiru madhabi madhabkayga midka u gargaarayo noolaynaya imaamkii uu dhihi jiray wey fiiriya bal imaamu shaafici warkiisana wa qaala imaamu اlmusani wuxu uhi raximah اllah fii mukhtasarihi kitaabkiisa mukhtasarka ee uu ka soo gaabiyey fiqigii shaafici wuxuu yidhi qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi raximah اllah fadalla wuxuu tusay kitaabullah ilaahay kitaabkiisu wuxuu tusay wa sunnatu nebiyihi ilaahay nebigiisa sunnadiisu waxay tustay calayhi nabiga korkiisa asalaatu ammaanu ha ahaato wasalaamu nabadgelyo ha ahaato kitaab iyo sunna waxay tuseen calaa anna xaqan xaq iyo waajib cala alwliyaa'i dadka gabdhaha weliga u ah inuu ahaaday an yusawijuu inay guuriyaan alxaraa'ira gabdhaha xortaa albawaaliqa qaangaarkaa in aragna hadday doonaan an nikaaxa guur hadday doonaan ilaahay wuxuu ku waajibiyey xaq uga dhigay gabdhaha dadka mas-uulka ka ah hadday guur doonaan in ay nikaaxiyaan oo aysan nikaaxa u diidin waxaa ilaahay kitaabkii sunnadu ay tuseen calaa anna xaqan xaq inuu ku ahaaday cala alwliyaa dadka gabdhaha weliga u ah an yusawijuu inay guuriyaan alxaraa'ira gabdhaha xortaa albawaaliqa qaangaarka in aragna nikaaxa nikaax hadday doonaan oo wadacowna ay u yeedhaan ilaa ridan ilaa mardiyin nin raalli laga yahay ay yidhahdaan ninkaasa nala ku nikaaxiyo nin raalli laga yaha la raba ninaan raalli laga ahayn haddii lama siinayo ila gabadheedaa mas-uulka ah waxa dhaba mas-uuliyadda ilaahay ragga ugu dhiibayna nin aan sharcigu raalli ka ahayn oo aan gabar dhaqan karin waa inaan gabadha la siin oo gabadha laga ilaaliyo dhibaatada oo ayadu aysan fahmi karin laakiin ragga mas-uulka u fahmi karaan marka laakiin nin raalli laga yahay hadday u yeerto waa inaan loo diidin oo lagu nikaaxiyo kitaabka alle iyo sunnada nabigu saasay tuseen aayaddii soo qaatay imaam shaafici aayaddii tusayday macnahaas qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waidaa dallaqtum haddaad ragow furtaan annisaa dumarka fa balaqna ay gaaraan ajalahunna muddadooda ciddadiyaa dhammaatay dalqadihiina ma dhammaan falaa tacduluuhunna gabdhaha ha u diidinina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii soo furay inay dib isku guursadaan ha u diidinina idinka nikaaxi gacanteeda kugu jiraa haddaadnaa nikaaxi ma nikaaxsamayaan ha u diidinina ee guuriya waa goorma idaa taraadow gabdhaha iyo raggu hadday raalli iskugu noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si wanaag ah oo sharciga wanaaggiisa lagu yaqaan bilmacruufi si wanaaggiisa lagu yaqaan sharciga haddee sharciga hadduusan isku ogolaan iyagu ay israbaan layskuma nikaaxi karo maalan dalqadihii waa dhammaadeen waxay rabaan inay iska wada joogaan waxay ku leeyihin saasana laiskugu kaana nikaaxiyo ee taa sharcigu ma ogola taa sharcigu ma ogola qaala imaamu shaaficiya wuxuu yidhi wahaadihi aayaddaanu abyanu aayatin waa aayadda ugu caddaan badan aayaddaasoo fii kitaabillaah kitaabka ilaahay ku sugan tacaala ilaa wuu sarreeyaaye dalaalatan xagga tusidda calaa anna laysa lilmar'a haweenayda inuusan u sugnaan an tatasawaja inay guursato bikayri weliy u fiirsada aayaddan waa aayadda ugu caddaan badan kitaabka alle ku sugan oo tusayda gabadha weli la-aan aysan gursan karin weliguna waa naga ogaanay ma ahan mid gacanku samaysa ma ahan mid foojariya ma ahan cabdilla shideeye waa mid rabbi u sameeyey marar badanna waa nagu soo laaban doona weligu waa weli rabbi u sameeyey rasuulku caddeeyey oo gaar ah ee mid foojariyo la sameeyey maaha marka sidaas aayadda ku sugan qaala imaamu shaafici wuxuu yidhi wahaadihi aayaddaanu abyanu aayatin waa aayadda ugu caddaan badan aayaddoo fii kitaabillaah kitaabka ilaahay ku sugan tacaala ilaah waa sarreeyaahe dalaalatan xagga tusiday ku caddahay calaa an laysa lilmar'ati haweenayda inuusan u sugnaan an tatasawaja inay guursato bikayri weliyin weli la'aan uma dakara imaam shaafici wuxuu sheegay sababa nusuuli aaya aayadda sabab nusuulkeedii sabab nusuulkii almadkuura lasoo sheegay aanifan ma dhowe xadiidkii macqil ibnu yasaan ee bukhaari iyo kayrkiis kiiyuu keenay imaam shaafici kiiyuu keenay
ثم قال إمام الشافعي وحو يري وروت عائشة وحي وردي رضي الله عنها إلهي عائشة رضيها كان نقضي أن النبي صوبا صلى الله عليه وسلم قال النبي صوبا وحو يري أي امرأة هويني كستا من ألفاظ العموم اللي رضا هل هوينه كبحمه ها تبكرو ها تقرب كل ويسكمه أي امرأة هويني كستا ونكحت قرسته بغير إذن وليها ما هم فيري ولي عنك سميسا ومت أيضا اللوتي أيضا ولي جيدي ولي نبو قبر والبورية إلهي وياي ولي جيدي فيري معها ولي اسكا سميسا معها ولي جيدي ولي نبو فيري ومت قارعة أيضا إلهي وياي ومت قارعة فيري gabar kastoo guursata weligeedii ilaahay weliga uga dhigay idankiisi la'aantiis fa nikaaxuhaa nikaaxeedu baatilu waa baatil alaaan saddex maraa nabigu ku celshay fa nikaaxuhaa baatil fa nikaaxuhaa baatil fa nikaaxuhaa baatil bilaahi calaykum ilaahay baan idinku dhaariyey qof ilaahay ilaahnimo u rumaysan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam rasuulnimo u rumaysan diinka islaamka xaqnimo u rumaysan saddex goor nabigu kelmadda uu ku celshay ee uu yidhi gabar kasta nuucay rabta ahaato ee guursata weligeedii ayada ilaah weliga uga dhigay idankiisi la'aantiis guurkeedu waa baatil guurkeedu waa baatil guurkeedu waa baatil min ilaah qof ilaahay u rumaysan ilaahnimo rasuulka rasuulnimo u rumaysan diintana diinnimo u rumaysan ma dhihi karaa baatil maahane waa xaq ma dhihi karaa maya kalla ثم قال إمام الشافعي وحو يري وفي ذلك حديث كاس دلالات معاني أتصيا كسوغان دلالات أيها كسوغان معاني أتصيا منها وحا كمد الدلالات أن للولي ورق شركا وذاك أصغنا ذي في بطئها قبل فرشي كذا شركو كلية كلية كما طالبه شركو كلية هي سأسولي شافعي وفرصو shirkadaasoo laa yatimu nikaax uusan dhammaystirmayn ilaa bihi shirkigii maaane wadaagii shirkigu waa wadaaga laba qof hadday isla leeyihiin guri mid ma iska gadan kara ya ma gadan karo beeci waa faasid aa laleeyahy soo maaha waa noocaas gabadha waxa weeyaan markay guursaydo ayadana lama dirqi karo nabigu wuxuu leeya lama guuri karo ilaa idan la weydiiyo lama qasbi karo weligana waxa weeyaan gabadhiina waxa la leeyahay ma guursatid karsid ilaa weligu ku nikaaxiyo shirka meeshii taalo ilaa marka la wada tashado weliguna nikaaxa rido ayadoo ninkii raalli ku noqoto guur ma la arki karo soo ma jeedid marka shirko weeye waa dad xuquuq ka dhaxaydo minhaa waxaa ka mid ah xadiisku macaanida uu tusaa anna lilwaliyi weliga shirkad wadaag ah ugu sugnaaday fii budcihaa gabadha farjigeeduu shirko kula yahay laa yatimu wadaaggaasoo laa yatimu nikaaxu aan guurku dhammaystirmayn ilaa bihi wadaaggaas in la helo maahane maa muddo ayuu la wadaagaa lam yacdalhaa uusan diidinoo guurka u diidin hadduu guurka u diido oo ka hor istaago markaas laftirkeeda waa noo soo socotaa ma ahan sida ciyaalsiyadu ay tiri macnaa kuwa dhafarada xiran siday yidhahdeen maaha oo waxay yidhahdeen hadduu kuu diido hortiisaa lagu nikaaxsaa yaa ku yidhi yaa kugu nikaaxina halkaad ka akrida weligaa labaa weli khaasa iyo weli caam aabbuhu waa weli khaasa qaraabadu waa weli khaasa haddii ayagu diidaan weli caamahaa jira waa imaamka muslimiinta suldaanka wey suldaanka waxa loola jeeda waa noo soo socda suldaanka la aadaa ninkii gabadha rabay suldaanku u tagaa wuxuu gabadhaasaan doonay waana ii diiday ninkaas suldaanka u yeera marka xataa isagu iska nikaaxin ma waa u yeera inta u yeero wuxuu leeyahay ninkan gabadha makaa soo doonay maxaad ugu diiday hadduu cilo saxa keeno uu yidhaha waa tuub isbaaraystaan wuxuu leeyahay waa saxantahay uu leeyahy suldaanka waa ciyaalsiya dhafoorkiisa fiiri ma gabadaa lagu aamini kara madaxiisa saas u galay waa loo diida hadduu wax saxa keeno laakiin fiiri haddii uu yidhahdo waa reer hebel isma guursanno wuxuu leeya war waxaad ku hadlaydaa wax muslim ku hadla maahane gabadha ninka ku nikaax haddii kale anaa hortaada kula nikaaxina ilaa imaamku wuxuu leey ayuu leey wilaayu haysta soo ma jeedid markaas wey markuu nikaaxi kara cidda nikaaxi karta markuu diido waa suldaanka wey ee maaha wadaad meel iska fadhiya wadaad meel fadhiya meel ma soo galo marka hadalkaas bal ka fiiriya mukhtasarka imaam al-Muzani safxada 264 وقال الإمام الحافظ ابن حجر بخاري شرحي Fath al-Bari قال الإمام
xaafid ibn xajar wuxuu yidhi oo fatxulbaariga ku yidhi raximahullah ittafaqa waxay isku waafaqeen ahlu tafsiiri culummada tafsiirka calaa ana almukhaadaba qofka lagula hadlaa bidaalika aayaddaas qowlkaas falaa tacduluuhunna yaa lala hadlaya cidda rabbi la hadla ou leeyaha diidin yaa waayo oo wax diidi kara taasuu noo caddaynaa ittafaqa waxay isku waafaqeen ahlu tafsiiri calaa ana almukhaadaba kan lagula hadlaa bidaalika qowlka alleh alwliyaa gabdhaha dadka weliga u ah inay yihiin dakarahu sidaas waxaa sheegay ibnu jariir waanagi soo aragna inuu sheegay iyo wa kayruhu kayrkiisba wa qaala alxaafid xaafid ibn xajar hadalkaas horeeto fatxulbaariga kitaabu tafsiir raqamka xadiidka markuu sharxa 4529 ayuu ku sheegaya xaafidku fiiriye mar kale wuxuu yidhi xaafidku wa qaala alxaafid wuxuu yidhi aydan noqoshee bacda maa dakara xadiiskii bukhaariga ku yilay oo sabnusuulki aan hadda soo marnay macqil ibnu yasaaq uu keenay xadiiskiiu sharxa kadib wuxuu yidhi xaafidku hadalkan wa qaala alxaafid wuxuu yidhi aydan noqoshee bacda maa dakara markuu sheegay ka gadaal sababa nusuuli laaya aayaddan sababkay ku soo degtay sababkii almadkuura ee la soo sheegay wuxuu yidhi wahiya aayadaanu aslaxu daliili waa daliilka ugu caddaan badan calaa ictibaariilweliyi weliga in la tixgeliyo weliga in la tixgeliyo marka gabadha la nikaaxina waa aayadda ugu caddaan badane tusayda wa ilaa haddii kale oo weliga laga tasho karo fiiriya wa ilaa in lam yakun muctabar hadduusan ahayn mid la tixgeline oo laga tasho karo lamaa kaana uma sugnaadeen licadlihi diididiisa macnan wax macna haddiiba asaga laga tasho karo oo nikaax uusan nikaaxin uu dhici karo ha diidin ilaahay ma dhihin qofka yidhaahda marka weliga waa laga tasho karaahoo asagoon asagu wax nikaaxin ayaa nikaax la heli karaa waa qof yidhi ilaahay qowlkiisa wax macnaa ma leh qof yidhi wey markaasuu wuxuu yidhi wailaa in lam yakun muctabaran haddaan la tixgelinayn lamaa kaana uma sugnaadeen licadlihi diididiisa macnan wax macnaa waliannahaa midayda kale gabadha low kaana lahaa hadduu sugnaa lahaa an tusawija inay guuri karto nafsaha nafsadeeda lam taxtaj uma baahateen ilaa aqiyaha walaalkeed macqil ibnu yasaar miyay u baaha leheed uma baahateen ayana iska guursa leh ta tagto oo meelahaas waxa 90 kilomitir aado ay iska guursa leh uma baahateen wuxuu yidhi xaafidku waman qof kaana amruhu arrinkiisu ilayhi asaga u sugnaaday laa yuqaalu lama yidhaahdo ina kayrahu kayrkiisa manacahu u diiday minhu arrinkii qof asaga taladiisu gacanta ugu jirto oo asagu guursa kara lama yidhaahdo qof kale wax u diiday maxaa qof kale waxmaba u diidi karaba qof kale waxmaba uma diidi karaba markaas wuxuu yidhi wadakara wuxuu sheegay ibnulmundir annahu shaaniye laa yucrafu laga garanmaa can axadin hal qof oo min asaxaabati saxaabada ka mid a khilaafu daalika macnahaas wax khilaafsan dhammaan saxaabadii rasuulku macnahaas isku waafaqsanaayeen gabar weligeedaa nikaaxiya gabadhan weligeedu nikaaxinu ma xirna suurtagal ma ahan in nikaax la helo ayadoo weliga uusan nikaaxin macnahaas isku waafaqsanaay bal waxaad ka fiiridaa fatxulbaariga kitaabu nikaax markuu sharxayo raqamka xadiidka 5130 aayaadka intaasan ku gaabinaynaa axaadiistana aan wax yar bal ayagana ka aragno ثaaniya aladilatu adilada min asunati sunnada nabiga xaggiisa ka ahaatay aladilatu adilada min asunati sunnada nabiga xaggeeda ka ahaatay الدليل الأول دليلka ugu horeeya qول cمر waa cمر بن الخطاaب hadلkiisii رaضي الله عنه لcثمaaنa cثmaan بن cafاan wuxuu ku yidhi رaضي الله عنه baعda an تأyمت markay garoob noqotay ka gadaal xafصة بinti cمر بن الخطاaب xafsadii cمar dhalay markay garoob noqotay رaضي الله canهa min iبni xudaaثة ninkii iبni xudaaثة la dhihi jiray markay ka garabowdo ninkii uu dhintay الsahmiyu ee qabiiladaas loo nisbeeye رaضي الله canه ninkaasu markuu ka dhintay gabadhii uu dhalay cumar oo xabso aheedna ay garoob noqotay oo wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto cuثmaan ibnu cafaanu cumar la hadla cuثmaan ibnu cafaanu u tegi markii gabadhiisii garoob noqotay oo gabadhii ciddadeedii dhammaatay markaasuu wuxuu ku yidhi in shi'ta haddaad rabto radia allaahu canhu ibnu xudaafe ilaahay raadiga ka noqdo saxaabi u ahaa wuxuu yidhi in shi'ta haddaad rabto cuثmaan ibnu cafaanow haddaad doonayso wey in shi'ta haddaad doonayso ankaxtuka anaa kugu nikaaxina xabsa fiiri ma dhihin ayadaa ku guursay anaa kugu nikaaxinayuu leey maahan ayadaa ku guursan iyad wax ma guursan karto
ayada guur kama suurtaado anaa kugu nikaaxinaa radia allahu canha marka cumaan waa ka cudur daartay wuxuu ihi sanadaan guursan ma anugu sanadaan iima soo bixin inaan guursado uy waa ka tegey abubakar u teg fiiri qof wanaagsanoo saalixa gabadhaada inaad tiraa aan ku siiyo wanaagay ka mid ta waana dhaqankii saxaabada wa qaala cumar wuxuu yidhi aydan noqoshay liabi bakrin radia allaahu canhu in shiita haddaad rabto zawajtuka waan kugu nikaaxina xafsata abubakar shib uu ka yidhi waa la hadli diiday shib maxaa la hadal uma furnayn abubakar wax uu ku jawaabo ma heli karin abubakar shib uu yidhi markii maalme la joogaa nabigu soo doono sababtu waxay ahayd nabigu inuu gabadhan doonayo abubakar ogaa abubakar waa nabiga saaxiibkiis gaarka marka inuu gabadhan doonayuu ogaa laba shay midna ma dhihi karo gabar nabigii doonayo anaa raba isii ma dhihi karo oo uu og yahay nabigu inuu doonayo sirtii nabigana ma faafi karo nabigu iga sii hormaro sii sheeg ma dhihin oo nabigaaba gabadhan doonaya ma dhihi karo waxaa dhacda nabigu inuu ka bar nabigii marka sirtiisiina ma sheegi karo gabar nabi rabana asagu kama hormari karo hadal uma furno shib u yihi saas darteeda markii dambe oo nabigu soo doonay oo cumar nabiga ku nikaaxiyey ay maalin kulmeen abubakar iyo cumar markaasuu abubakar yii markaana hadal u furayay moogta markaa ada cumar waadhoodood gabadhaada ii soo bandhigtay oon kula hadli diiday maiga xumaata saxaabaduna mujaamalada nacasnimada ma oqoon markaasuu waa kaa xamaado adankaaga carooday gabadhaydiyaan kuu soo bandhigay shib aad iska tig markaasuu yidhi sababkii waa sidaan gabadha waan ogaa nabigu inuu doonayo gabar nabigii doonaya siina kuma dhihi karin sirta nabigana ma faafi karin marka hadal meelan ka hadlaan waayo waa kaa dawoob sidaasaa muslimku ku dhaqma adoo cuqdad balaaya kaa bil haddaa tir dhimale dhimale waxaas waa nacasnimo waana waxa dadka kala dila fiiri wa qaala cumar wuxuu ku yidhi ayda noqoshay liabi bakrin radia allahu canhu in shiita haddaad doonayso zawajtuka waa kuu guurinaa xabsa ilaa an qaala ilaahu markii dambe yidhi uma khadabahaa waxaa soo doonay gabadhii xabse aheed annabiyu nabiga sala allahu calay wasalam fa ankaxtuhaa gabadhii anaa ku nikaaxiyey iyaahu nabiga u yidhi fiiri ayadaa guursatay maaha ayada wax ma guursan karo anaa ku nikaaxiyey u yidhi markii horena wuxuu anugu aan idinku nikaaxiyo xadiiska saxiix bukhaariga raqamka 5122 ka fiiri qaala alimaam ibnulmulaqin wuxuu yidhi sharax weyn uu ku leeyahy bukhaariga wuxuu yidhi ibnulmulaqin markuu sharxayo xadiiskan raximahullah fii sharxihi cala albukhaariy sharax uu bukhaariga ku sharxayo faslon uu yidhi wuxuu yidhi fii caqdi cumara cumar nikaaxintiisa calaa xafsata xafse uu nikaaxiyey radia allaahu canhumaa xafse iyo cumarba ilaa raadiha ka noqdee duunaha ayada ka soka iyadu ma guursanu ku yidhi fiiri ayadu ma guursana cumaraa nikaaxiyey duunaha ayada ka sokay nikaaxintaas daliilaa ku sugan daliilku wuxuu tusaa calaa annahu shaniye laysa lilbaaliqati gabadha qaangaarka uma sugnaan taswiiju nafsihaa nafsadeeda inay guurido duuna weliyaha weligeeda ka sokay weligeedii asagoo nikaaxin inay ayadu guursataa inaysan u sugnayn xadiiskaas tusaya wuxuu yidhi wuxuu rabaa inuu ku yidhaha haddii gabar guursan karto cumar nabigu gabadha kama dalbeen qof asaga talada gacanta ugu jirto asagaa wax la weydiistaa nabigu wuxuu weydiisanaha xabs u dhilaayo xabso aan ku guursado iguurso marka kama tageen laakiin cumar aa nabiga u nikaaxiyey soo ma jeedid intaasuu ku tusaa wuxuu ku yidhi walow kaana daalika arrinkaas oo guurkaa lahaa gabadha hadduu sugnaa lahaa lam yakun ishaaricu shaarica hadda waa nabiga shaaric ma la dhihi karaa mase lama dhihi karo khilaafaa ku jira uu adeegsaday ibnulmulaqin laakiin walow kaana daalika guurku lahaa hadduu gabadha u sugnaa lahaa lam yakun ishaaricu shaaricu ma ahaadeen yadacu mid ka taga khidbata xabse inuu ka doono ilaa nafsiha nafsadeeda inuu ka doono kama tageen id ciladu waxay tahay kaanad waxay ahaareed hadday iyadu wax guursan karto owlaa mid u xaqnimo badan binafsiha nafsadeeda min abihaa aabbeed ayadaa ka xaqnimo badnaa laheed wayakhdubuha nabigu kama dooneen ilaa man qof laa yamliku aan milkin amraha taladeeda walalcaqda inuu nikaaxiyana aan milkin calayha korkeeda hadday ayadu wax nikaaxsan karto cumar kama dooneen qof aan taladu gacanta ugu jirin kama dooneen hadalkaas waxaad ka fiiridaa sharxa weyne bukhaariga atawdiix sharxuljaamici asaxiix juska 24 safxada 398 iyo ilaa laga gaaro 399 daaru nawaadir
الدليل الثاني دليل كلابيه أو حق سنة النبي دليل كلابات الدليل الثاني إخبار عائشة وإن عائشة شاكتي رضي الله عنها أن النكاح جورك في الجاهلية وقت قال لماذا كان وقوعها على 4 أنحاء أفرنوع نبقى انت لصادرين قالوا أفرنوع أي قرسة جيرين في ريما قفك مسلم كاهو أديك جوركاغو ما جورك النبي أقايا مسوا ميت جاهلي وفي صبا وحي النبي جور أقلاده يوحو ديدي waxay tiri anna nikaaxa guurka fil jaahiliyati waqtigii gaalnimada kaana wuxuu ahaa calaa 4 anxaa'in afarno fa nikaaxu nikaax oo minhaa afarta ka mida nikaaxu naasi waa dadka guurkooda alyawma maantada aan joogo ay isku guursadaanay tiri Caaisha guurka maanta ay isku guursadaan dadku waa waqtiga Caaisha joogtay sawma qof kastoo muslima uma baahna inuu fahmo guurkii waqtigii Caaisha joogtay la isku guursan jiray si uu wax ugu guursado guurkaas سوما باهما واتن عائشة نوع عدين إذا قورك مالين كاس وحي تري وحي نوع عدين النكاح الناس اليوم مالين كي تشوكتي قورك لسكو قورسي جري وحي تري يخضب الرجل منك وحو كدونا إلى الرجل منك كلا وليته وقبض ورقة كيهي أو ابنته أما قبضنا أوضالي إلا واحد إيكرت قبض إنه دوري وتأذو أذن طالي ولا شاء كلا كلا دلاتي أي نقل كرتا إيا كوا كلا بضان gabadha wariga ka yahay ayuu ka doona ama uu dhalay fayusdiqha meherna waa bixina wax been lama rabo meherka waa in la iska bixiyaa in la hormariyana wanaag badan marka meherkana waa bixina uma yankixa markaas uu ka guursana guur waa guurkaas waa guurka waqtiga nabigu joogay Aisha joogtay la isku guursanay saddexdii kale waa iska xadafnay annaga soo gaabayna xadiiskan ku sheegay raqamkiisa aba ka daalacana ilaa an qaalad ilaa ay tiri fiiriyo فلما بعث مركي لسو صاري محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق حق نمو مركي لغا سو صاري هدنا نبي واد دنيي نكاح الجاهليه غوركي غالدا كله دمانتيس الا نكاح الناس بدك غوركودا ما هن اليوم ما انت اسكو غورسنيا waxay tiri Aisha nabiga dhamaan waa burburiyay guurkii dadku isku guursanayeen wuxuu soo reebay guurka maanta dadku isku guursanayeen guurkii waa tii soo sharaxday ninkii guur doonaya gabadha warigeedu u taga meherna waa ogolaana saasuu ku guursanay kaas intaan ahay nabigu waa burburi qofka marka si kale guur ku raadinaya wixii nabigu burburiyo u socda soomaa guurkii nabigu uu jideeyay waa ka tag حديث كاس واحد كفر إذا صحيح البخاري رقمك 5227 دار النوادي بالكفير ميدا كلا واحد في رضا سيد أي يفهم من أئمة المسلمين إمام البخاري حديث كاس عنوان وغادي باب قول من قال لا نكاح إلا بولي حديث كان ودري شيء غور إنه سان صحين هذا ولي قبل النكاح وإمام البخاري سيفهم الدليل الثالث دليل كصدحية حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغيري لا النكاح صحيح ماهن إلا بولي ماهن نكاح مسقنانيو صح من نقريو ولي الآن حديث كان يوري ما صحيح ما سوى ضعيف حوية رواه حديث كوحوري حاشد نكويا لفير حاشية إمام أحمد أيوري رقم كووري 6,700 أبو داود نواوري رقم كلاباكو 6,000 إمام الترمذي نواوري رقم ككون 220 وحنيري حديث حسن وحديث ونكسر ابن ماجه نواوري رقم ككون 6,000 ابن أبي شيبة نواوري رقم كون 260 علماء حكاية هذا ما صحيح ما سوى ضعيف وصححه حديثك وحى صحيح يلي عبد الرحمن بن مهدي كما في إرشاد الفقيه كتاب كان إرشاد الفقيه جزكي صلبات بقول أفرتني يا شمس بقول صغار يا اسكالي إرشاد الفقيه لابن كثير حافظ كثير عليه يا كلو صحيحي وأحمد بن حنبل صحيحي وابن معين يحيى ابن معين وصحيحي حتى يقول طلع الله إنه صحيحية كما في نجم الوهاد كتاب كان نجم الوهاد كسيبا كل صغار جزك التضرات صفحة اللحظة يشار وحكرا صحيحي وابن المدينة علي بن المدينة البخاري شيقيسي وابن حبان حتى لبضعنا صحيح وذكو سوغين له كما في بلوغ المراء رقم لبضبق السقاشن يلح وحكرا صحيحي إمام البخاري وحكو صحيحي سنة وكو سوغين له ومعناها كسر هري إمام البيهقية كسر هري
وحكو سبيه تصحيحين سنن الكبرى للبيهقي جزء تضبط صفحة بقول يلابو وحكرا صحيحي القردبي ما هو شيخ تفسير كلا وكان تفسير كلا شيقيسي كان تفسير كلا أبو عبد الله هي اللي شيقيسنا أبو العباس القردبي المفهم لما أشكال من صحيح المسلم وكتاب قاسمين كإسكاله قردبنا المفهم كوكو صحيحي جزء أفراد بطل طبعا يليه ابن المراقن وو صحيحي بدر المنير جزء تضبط شنبغل أفرطن يا صدق أئمة المسلمين صاصي صحيحي نكاح نجرو قبض هذا ولد نكاح الدليل هذا دليل كأفرية حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحي تري قال رسول الله رسولك إلهي وحيد صلى الله عليه وسلم أيما امرأة قبر كستا oo nakaxad guursata biqayri idni waliha waligeeda idankiisa la'aantiis gabadhii guursata fa nikaaxeedu baatil waa baatil fa nikaaxu guurkeedu baatil waa baatil fa nikaaxu guurkeedu baatil waa baatil fa in dakhala biha hadu u galmoodo falaha waxa u sugnaaday almahru mahr bima kii sababtiisa ugu sugnaaday istaxalla uu xalaashaday min farjiha gabadhii wali ma nikaaxin ninkii waxa weeyaan waa iskala seexatay mahr ku leedahay مهر كان هو مهر المثل ما هو ذاتك ماشي فدي وحي او شيغay iskuma la meeshaasna qalad badana ka jira gabar inta min islaamadu tagtay wilaayaan ku dhiibtay in nikaax waa nikaax hadii aysan istaaban oo la kala ayriyo kuma xirno hadii far la dhima baabkeedu waa noo soo socda oo furiin xarig xirana la yiraahdo la furo meherna kuma la xayla min islaamadu ajnabiga dariiqa marasay meher ugu yara laakiin haduu u galmoodo galmooshada mehra ka dhaca galmooshadaas uu xalaashaday mehra ka dhaca mehra ka waajibay macnaha mehra ka waajibay fa nabigu wuxuu yiri fa in dakhala biha u galmoodo falaha almehru mehra usugnaada gabadha bimastahalla xalaashiga uu xalaashaday min farjiha fa in ishtajaru haday murmaan awliyadi gabadha waligeed haday murmaan xal loola jeeda wuxuu yiri Abdurrauf Munawi fa in ishtajaru waxa loola jeeda takhaasama alawliyaa أوريد يا مرمان والمراد مشاجرة لعدل وحويا مثل ده وحي أنو نكاحما ورادو نكاح أنا نكاحما قبل مثلا شان ولا لا طلبتي أيغانا ولي وقع وادي دقين النكاحيا ساسا لوريتش داوي ماهن أنا نكاحنا ما أنا نكاحنا ماهن نكاح ده يقولي المتكي أيغا إذا انتا نكاحنا لكن واحد كي معنوه ونكاح الديدين hadday diidaan inay nikaahiyaan fa suldaanu imaamka muslimiinta waliyu wali u ah man gabadha la waliya lahu aan waliga lahayn waxay noqonaysaa gabadha wali lahayn oo kale saasay noqonaysaa marka xadiidkana sariix nabi maxamed wuxuu leeyahay gabar kastoo waligeedii la'aantiis guursata guurkeedu waa baatil muumin kasta waxaa ku waajiba inuu yidhaha guurkaas waa baatil oo nabiga nabinimo u rumaysan xadiiska imaam axmed wariyey raqamka 1402 abu daawuud wariyey 1083 waxaa wariyo kale tirmidhi raqamka 1127 wuxuu leeyahay xadiisun xasan ibn maajah wariyey 1879 ibn abi shayba wariyey raqamka 10667 shaafiiciya umka ku wariyey juska saddexaad 185 waxaa saxiix yeelay abu cawaana ibnu xibaan iyo xaakim sida buluuqul maraamka ku sugan 297 qurdubi ayaa saxiixiyey sida mufhimka ku sugan juska afraad 116 ibn al-muraqin ayaa saxiixiyey sida badrul munirka ku sugan juska toddobaad 553 xaafid ibn xajar saxiixiyey sida fathul baariga ku sugan juska sagaalaad 101 xashadu waxa dhamin ku yaaleen intaas ayaan ku hakinaynaa awra darsiga wallahu subhanahu wa ta'ala sallallahu ala nabiyina muhammad